السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا السلام إذا مانتين مدة صومالية ميل بيت شوكتو. السيد عبد الرحمن عبد الشكور سياسة الصومالية ريب بدن أيوب كسو كرديي waxaa ka mid a siyaasadda muufaysiga marka anna maanta waxaan kugu darayaa erey kale oo la yiraahdo siyaasadda sacabka iyo saxanka iyo hoos yaalla marka waxaan arkayaa in qof kasta oo hool inta kireysta ee qada bixiya dad iskugu yeera wuxuu rabaa inta sheego in loo sacbinayo sax weeye la leeyahay ayadoo qofkaas la fiirinaynin backgroundkiisa shakhsiyaddiisa wuxuu ka shaqayn jiray waxa uu yahay waxa uu bulshadan ka dhex ahaa maxaa la yidhaahdaa dadkan ma u shaqayn jiray ma ka shaqaysan jiray ma ku shaqayn jiray ma dad kale uga shaqayn jiray marka waxa weeyaan dad badan baa hadda soo sharaxayo xildhibaan raadinayo wax walba raadinayo waxay leeyihiin annagoo saasoo haladii la ku reeyay intaasaan wax soo qabtay waxaasaan soo qabtay ayagoo aan ognahay taariikhdooda madow deegaamada ay isku sharaxayaan inay soo burburiyeen inay dana shakhsiyaad inay ka fulin jireen oo ay ka doorteen deegaankooda iyo dadkooda iyo bulshadooda inay u adeegaan inay ka doorteen in shakhsi waxa uu rabo oo farmaajo uu doonayo 4 sano dalkan inuu ku burburiyo u adeegahaye oo adeega u ahaa oo gacan yaro u ahaa oo ummadaas wax alla wixii uu rabo oo xun uga dhex fulinayay markii uu maxaa la yiraahdaa isheeg uu dan ka leeyahay ayaga u adeegsanayay markii uu rabo inuu burburiyo ayaga u adeegsanayay markii uu rabo qof uu maxaa la yiraahdaa uu saarto ayaga u saarahayay oo dusha ka saarahayay dadkaas baa raba inay maantay soo sharaxaan oo yiraahdaan musharaxiin baan nahay waxbaan soo qabanay dalkan u soo adeegnay dadkan u adeegnay laakiin waxaan leenahay waa beentood waxna ma soo qaban dad iyo dalna uma adeegine farmaajay u shaqaynayeen haddana rabaan inay u shaqeeyaan soona celiyaan oo ay 4 sano oo kale ummadda Soomaaliyeed dusha ka saaraan dulligii uu maxamed cabdulaahi farmaajo baday eedaysane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku eedaysan dhiibistii qalbi dhagax oo ku eedaysan la shaqaynta argagixisada al-shabaab oo ku eedaysan 11,000 oo wiilal Soomaaliyeed oo aan curan inuu amxaare iyo Tigreey ka gatay oo ku eedaysan inuu dadkii Soomaaliyeed kala dhiibay oo kala irdeeyay oo kala baabi'iyay oo isku diray oo ku eedaysan inuu musuqmaasuqay dawladdii oo ku eedaysan inuu sharcigii ku tuntay oo ku eedaysan inuu dalka doorashadii uu ka qaban lahaa uu diktatoriyad u bedelay oo uu rabay inuu waddankan xukunkiisa iska sii haysto oo uu sharciga iyo dastuurka ku tunto oo haddii ilaahay ku reey qori caaradis looga dhigay kuwaas ayaa raba in haddii ilaahay ku reey ay maxaa cabdulaahi farmaajo dib u soo celiyaan ninka u quuri waayo hooyooyinka ooynaya oo filo Soomaaliya hortooda ku suuxaya inuu inta soo baxo la hadlo oo yiraahdo hooyooyin ilmihiinii waa idiin keenaynaa ama waa ku maqannahay ama meeshaas ay ku maqan yihiin raalli ahaada naga warsuga kaliya u quuri waaya ku jeesjeesay ee u soo diray dubbe damiir laawe ayay rabaan inay dib u soo celiyaan mana ka yeelayno dadkaas waxaan leenahay laga digtoonaado dalkaas waxaan leenahay lacagaha filo Soomaaliya ay soo siinayso oo hoolalka lagu kireynayo oo dadka loo camirhayo oo loo sac telefishinada loo geynayo waxba kama jiraan waa farmaajo oo magacyo kala leh waa farmaajo oo raba inay dib u soo noqdo yaana laga aqbalin yaana la soo dhaweyn deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle iyo gobolka Banaadir iyo gobolada Somaliland iyo Baa iyo Bokolna waxaan ugu baaqaynaa dadkii farmaajo ka agdhawaa ee ka ag shaqaynayay ee haddii ilaahay ku rooyay 4 sano ee la soo dhaafo ummadda Soomaaliyeed u duleeyay inaan dib loo soo dooran aad iyo aad mahadsantihiin anigoo cali xirsi kaarshe waa salaamaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
dhirta ha la beero. Ummadda Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa inay dhirta beeraan. Dhirtu waa iftiinka nolosha, waa quruxda dhulka, waa quruxda indhaha, waa quruxda deegaanka. Marka dhirtu waa muhiim. Dhirta yaan la jarin Soomaaliyey. Dhirta ha la beerto. Dhirta ha la beerto. war Soomaaliyey dhirta ha la beero. Dhirtu waa muhiim, waa qurux, deegaankay u fiican tahay, xoolaha cuna, waa lagu raaxaystaa, indhahay u roon tahay, roobkay keentaa oo soo jiidataa. marka waxaan kula talinayaa ummadda Soomaaliyeed deegaanka ha la ilaaliyo, dhirta ha la beero. Dhirtu waa muhiim, geeduhu waa qurux, waa hawo, waa caafimaad, waa nolol. meelaan dhir ka jirin nolol kama jirto. marka dhirta yaan lagu ciyaarin, yaan la jarin. waan idin salaamaya ummadda Soomaaliyeed meel baa joogtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.